Waa dhacdo xanuun iyo murugo badan. Ismahaan Bakaal oo ah gabadha sawirkeeda idiin muuqdo waxaa dilay nin lagu magacaabo Nuur oo ahaa askari ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaasna ay jacayl wadaag ahaayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamay walaalaha ugu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkayga. Halkaad igala socotaan waa Fahima Channel. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Allah u naxariistay Ismahaan Bakaal ninka dilay oo lagu magacaabo Nuur ayaa waxa ay ahaayeen ilmo abti iyo ilmo eedo. Sidoo kale jacayl ayaa ka dhaxeeyay oo muddo dhowr sano ah ayay iswada jeclaayeen. Ismahaan ayaa ninka dartiisa ay u garaaceen reerkooda si ay uga harto, laakiin ma aysan dhicinin oo Ismahaan iyo Nuur jacaylkooda iyo xiriirkooda ayaa sii socday. Muddo kadib waxaa dhacday in uu Nuur isku diyaarinayay maalmaha soo socda inuu aqal galo oo uu guursado Ismahaan maadaama ay isjeclaayeen waxa uuna ka doontay reerkooda, laakiin reerka Ismahaan ayaa diiday oo ku dhaheen annagu nin askari ah gabadheenu ma siinayno. Ismahaan ayaa inta aysan reerkeeda laga soo doonan ka hor waxa ay caqabado ku aadan Nuur jacaylkiisa kala kulantay reerkeeda. Ismahaan ayaana reerkeeda ay u sheegeen in wiilka askariga ah ee lagu magacaabo Nuur isla markaana ay qaraabada yihiin aan lagu dari doonin, sidaasina ay ka hartay, laakiin ma aysan ka harin oo xiriirkooda ayaa sii socday. Waqtiga soo socda waxa ay rajeynayeen inay isguursadaan. Nuur ayaa fasax ka qaatay shaqadii uu ka shaqeynayay maadaama uu ahaa askari ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxa uuna doontay gabadhii uu jeclaa, laakiin markii uu tagay gurigooda ayaa loo diiday Ismahaan waxayna reerkooda u sheegeen in gabadha aanan lagu dareynin nin askari ah. Ninkii lagu magacaabo Nuur ayaa xanaaqay waxa uuna ku laabtay gurigiisii. Maalin kadib waxa uu u soo noqday Ismahaan una sheegay inay isku raaci doonaan banaanka. Ismahaan iyo Nuur oo jacayl uu ka dhaxeeyay ayaa waxa ay soo aadeen banaanka waxa uuna u soo kaxeeyay meel duur ah, waxaana la socdeen dhowr askari oo kale. Kadibna meeshii uu geeyay ee duurka ahayd ayuu Ismahaan ku dilay Nuur, sidaas ayayna ku geeriyootay Ismahaan. Nuur ayaa hore u soo kaxaystay rag ay saaxiibo yihiin oo ay isla yihiin askar isla markaana ay isla shaqayn jireen, waxa uuna ku dhuftay xabadii darteed ayayna u dhimatay Ismahaan. Allah u naxariisto. Waa dhacdo xanuun iyo murugo badan. Sida aan wararka ku helnay, Nuur markii loo soo diiday gabadha in uu guursado ayuu ku fikiray in gabadha nafteeda uu dhaafiyo, sidaas ayaana damiirkiisa iyo aqligiisa u sheegay gabadha abtigiisa uu dhalay marna ay jacayl wadaaga ahaayeen in uu nafteedii dhaafiyo. Sidaas ayayna Ismahaan uga tagtay adduunyada oo waxaa dilay gacanka xaq daran. Maalmihii u dambeeyay waxaa aad u soo badanaya dhacdooyinka aadka foosha xun oo qof kasta markii uu maqlo fajac iyo murugo gelinayo. Meesha ay doontaba ha ka dhacdee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ayaan aragnaa inay ku soo badanayaan dhacdooyinka aan qalbiga u wanaagsaneyn. Isbuucii hore ee tagay waxaa jirtay hooyo umul ah haysatana 2 caruur ah oo aad u ooynaysay. Hooyadaasi oo dalbanaysay inay ummadda Soomaaliyeed soo caawiyaan. Waxaa xusid mudan hooyadaas 2 caruur haysata aabahooda inuu yahay askari ku jira dowladda Soomaaliya. Ninkaas askariga ayaa markii uu furay xaaskiisa waxa uu u sheegay in uusan wax biil ah bixi karin. Hooyadaas ayaa ka ooynaysa social media codsanaysayna iyada oo haysata 2 caruur ah isla markaana umul ah in ay ummadda Soomaaliyeed soo garab istaagaan maadaama aysan haysan hooy iyo waxa ay cunaan. Askartii la doonayay inay amniga sugaan haddii midna gabadhii uu jeclaa nafta dhaafiyo, midka kalena xaaskiisii iyo caruurtii uu ka soo bixi waayay waajibkii ka saarnaa, maxaa laga sugayaa dadka kale? Maalinba maalinta ka dambeysa waxaan maqalnaa dhacdooyinka la yaab kale oo aysan dheguhu u fiicneen. Waa idin mahad celinaya asxaabay. Fiidiyowga marka aad daawataan laagta dhac ku siiya waa lacag la'aan, dhiirigelin bay ii tahay si aan u soo badiyo muuqaalada cusub. Waana idin mahad celinayaa. Fiidiyowgan sii share gareeya. Sidaas waxaa idinkaga tegayaa fiidiyowga xigo inta ku kulmeyno. Nabadgelyo.